بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الله وسلامتين ملك استواء دونك أكجوتين صاحبكين هندري ويدين له isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh oo wadato Ramadan Kareem in videogan caaw wuxuu ku saabsan yahay waa isla wada arki doonaa waxa inoo socoto saa wada ogsoontihiin dadka guusha gaaray iyo sababta ay u gaareen guusha barnaamijyada aad iyo xiiso gaar ah way soo socdaan insha Allah yaa la moogaan asxaabta hala la socdo in kuna xirnaada channelka Allah Media kaliya waxa ku wanaagsan channelka inaad iska subscribe garisid لايكتنا أكو قوتي شير كاغن واينو مهم إن شاء الله برنامج كينا عاوا آنو قدو قلنا هرون أهانتي مركا آنو دح قلي شيكوين كا قوشة عجيب كا هرون أهانتي دادكا قوشة قارين إن أمان دادكا قوشة قاري أي كوذي سميهين دادكو قوليستي وحياويه أي دادكي هوري كأمين سنايين إني سنكو فعنين إن هدانو أصولاوانو فيديو جينا عاوا إن رون أهانتي نينك شاشة إنو ساران مساميسكا إنو ساران وحو يهي نين آديات ودا قرانا يسان نينك آنو عاوا مسامانتا وحي كوتهاي آنو مرتيدا أونهاي برشادا وحي ليه جيرين مسا بيئادا أو كنو ليهاي وحي كوتو المامي جيرين قف آنان برشابي يهين qof aan dadka dhaxgalin ajiib waxa uu noqdayba waxa ay dadka ku eedeen jireen waxa uu awooday inuu dadka dhan hal meel isku wada keeno qofku aan maanta martida u nahay misha shaashada inoo saaran waa wiil aad iyo aad u dhalinyaro ah waxa uu dhiganayay jaamacadii Bill Gates oo dhiganayay videogan ku horeeyay jaamacadaas waxa ku soo tilmaamnay inay ahayd Harvard runtii soo sheegnay waxa uu iska hay wiilkani wiil iska xirxiran oo aanan bulshaabi heenin dadka dhaxgalin asiga oo qolkiisa iskaga jiro oo waxyaabo iska jujuqeynaya ayuu wuxuu ku fikiray in uu group u sameeyo ardayda la dhiganaysay jaamacadda Harvard ardaydaasi oo groupkaasi iskugu keeno kadibni fikiradii uu ku fikirayay way sii kobacday si u sii socotay ultimo waxay gaartay ardayda jaamacadda la dhigata ma ahane arday kale inay ku soo xirmaan isla groupka oo asiga sameeyay markii hore saan wada ogsoonahay waxa ay ku ekeed groupka in ardayda dhaxdooda ay ahaadaan sheekadii ayaa weynaatay waxa ay isku bedeshay bal ina la arka 2004 ayuu binaanka u soo baxay abka ugu caansan dunida oo dhan abkaas ayaa isweydiin u baahan oo abka lagu magacaabo Facebook ajiib hadaba Facebooka fikradiisa waxa ay ka timid wiilkaasi qolkiisa iskaga jiray shibanaha ahaayay ardayda aanan soo dhaxgali jirin Mark Zuckerberg kadib markii Mark uu soo saaray shirkadda Facebooka Mark waxa isweydiin u baahan marka uu sameynayay aaladda Facebooka da'diisa waxa ay ahayd 24 sano oo kaliya meesha waxa inoogu soo baxday in ay da'du aysan ku xirnaanin waxa aad markaas aad sameynaysid balse waxa aad iska dhaadhicisid oo adiga aad aaminsan tahay sidee tahay hadaad ugu dhaqaaqdid inaad kamera dhalinaysid daawade waa yarahay mise waa weynahay ma ku xirno balse go'aanka adiga ayay kugu xiran tahay in aad iska dhaadhicisid waxa aad sameynaysid daawade wiilkan yar ee 24 jirka ah waxa loo soo bandhigay in la wareega shirkadda Facebooka deetana waxa loo soo bandhigay lacag milyaneer Mark da'diisa waa yareed balse aqligiisa ayaa aad iyo aad mar walba markii ka sii dambaysa u kobci jiray Mark waa uu ka diiday in laga iibsado aaladiisa Facebooka deetani dadkii waxa ay ku dhaheen Mark si amal ma waalan tahay maxaan kugu dhacay iyo wax ila mid ah
macnaha waxay taagan yihiin aaladan lacag milyaneen ayaa lagu sheegay aaladan maad iska iibsatid iyo waxii la mid ah balse asiga ma uusan dhageysan jirin hadallada dadka ay ku yiraahdaan mar walba ay ku eedeynayaan in uu iibiyo aaladan oo asiga qaaska uu leeyahay Mark. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka u adeegsanayaan Mark waqtigaada ka faa'iideyso wiil yar oo dhalinyaro ayaa tahay waqtigan yar ku soo maray ka faa'iideyso iyo wixii la mid ah ultima Mark isaga uu arintani ka hadlayo ayaa waxa uu yiri lacagta la ii soo bandhigay marnamo uma qalanto aalada aan anigu sameeyay shirkadda Facebook waxa caado u ah sanadba sanadkii ka sii dambeeyo in ay isbedel weyn sameeyaan ay horumar weyn ku soo kordhiyaan shirkadda sidoo kale shirkadda Facebook caqabado badan way soo martay xitaa waxaa lagu furay maxkamado badan ayaa loo adeegsaday aalada Facebook waxaa lagu furay intaasoo eedeen balse ilaa iyo maanta shirkadda Facebook ma ka seexanin waxyaabahaasi iyo caqabadaha badan balse sanadba sanadkii ka dambeeyay waxa ay isku dayeysay inay kobac sii sameyso aalada Facebook sidoo kale waa ay ku jeesjeesi jireen waxa ayna dhihi jireen waa qof aanan bulshaabi ahayn iyo wixii la mid ah balse waxaasoo dhan baha iska wada dhahaan ee bulshada maxuu noqday ayaa isweydiin u baahan waxa uu noqday midka dadka dhan hal meel iskugu wada keena balse dadka dhan waxa uu ka dhigay in ay hal meel iskugu wada kulmaan dad badanna waxa uu ka dhigay in ay saaxiibo noqdaan haddaba aan u gudagalno dulucda sheekada sheekada aan kala soo bixi karno waxa ay tahay talaabada koobaad hada yeelsanin fikradaada inay fikradaada ay gaarta dunida oo dhan Mark fikradiisa hore waxay ku bilaabatay group iska yar oo uu sameeyay ardayda jaamacadda kadibna fikradiisa waa ay sii kobacday ilaa ay gaartay heer oo uu sameeyo barnaamijka lagu magacaabo FB ama Facebook saad u taqaanay daawade dulucda labaad aanu kala soo bixi karno waxa ay tahay sheekada ama guusha uu gaaray wiilkan yar ha iibinin fikradaada lacag kasta oo lagu soo bandhigo qarash walba oo lagu sheego fikradaada haween walba u taagnaa jirtay in aad mar unba kamera dhaliso ha iibinin daawade fikradaadii waad kamera dhalisay waxaa tahay la arkay deetana inaa fikradaada ku degdegtid oo lacagtii lagu sheega aad iska qaadatid sheegii adiga aad ku dhafreysay mise aad ku riyoonaysayna inay hawada ka baxaan oo laga iibiyo marrabaha isku dayin daawade fikradda saddexaad waxa ay tahay ha dhageysanin hadallada dadka aad iyo aad ayay ku saameynayaan iyo wixii la mid ah waxaan ogsoonahay hadduu dhageysan lahaayay hadallada dadka ay ku dhahayaan waxa ay ku yiraahdeen saan wada ogsoonahay lacagta lagu sheegayo waa lacag dhabal ah oo milyaneer ah balse abkan inaad iibsatid wax ku dhaama malahan ayay ku dhahayeen asiga muu dhageystay hadalkii waa maya hadalkii ku yiraahdaan ba horay ayuu ugu sii soconayay wiilkan yar ee 25 jirka ah intaas ayaan ugu gudbaynaa sheekada guusha Mark waxaynu balanaa insha Allah videoga xiga oo xiisa gaar wato
intro inaan isiiya hadda ma jecli indihiina ayaad ku wada arki doontiin next video insha Allah waxa uu noqonayaa niima sheegaya hadda intro inaan isiiya ma jecli si kastoo ku misin daawashada muuqaalkayga daawateen waanigoo aan adeer gaashaan waxaynu balanaa videoga xiga balse caafimaadkaaga ka faa'iideyso